maalmaha waxaa ku jira saddex maalmood oo si gooniya loo sheegay waa yawmu carafa yawmu naxri yawmu lqar yawmu lcarafa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa min yawmin akthar min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaar min yawmi carafa maalin ka badan addoon ilaahay inuu naar ka xoreeyo maalinka carafa ma ay jiraan waa yawmu almakfirati waalcitqi min annaar ilaahay inagu daro maalin ka weyne ma jiro cadadka ugu badan oo naar laga xoreeya maalinkaasaa laga xoreeya markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegayaa soomka maalinkaa muhiimadda uu leeyahay markaasuu nebigu yidhi siyaamu yawmi carafa innii axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii bacdah waasanata alatii qablah waxaan ilaahay kaga ajar xisaabsanayaa maalintaas soonkeeda inuu dembigayga dhaafo kii hore iyo kii dambe labadaba ilaahay ku dhaafo maalinka ugu badan oo naarta laga xoreeyo weeyaan addoommada kuwa mashriq jooga iyo kuwa maqrib jooga iyo kuwa jooga mataqaanaa xajkii jooga iyo kuwa guryahoodii jooga kuwa baadiyaha ariga ku raacanaya addoon kasta meeshuu joogo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ola yimaado camal saalixa iyo cibaado wanaagsan oo maalinka ilaahay uu waafajiyo wuxuu ka mid yahay dadkaas dembigooda la dhaafayo cadaabka ilaahayna laga xoraynayo maalinka kale waa yowmu naxri waa maalinka ku xiga yowmu carafa waa maalinka tobnaad wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina acdama alayaami cinda allah ilaahay agtiisa maalmaha waxaa ugu weyn yowmu naxr maalinta yowmu naxriga ah oo ciidda ah oo acmaasha xajka badankeeda la samaynahayo ayaa ugu weyn waa maalinka waa la tuuranayaa waa la xiiranayaa waa la qalayaa dawaafkii baa la samaynayaa sacyigii baa la samaynayaa acmaasha xajka nuuca inta ugu badan maalinkay dhacdo waa maalinkaas uma yowmu lqar maalinka ka dambeeya yowmu lqar waa maalinka kow iyo tobnaad yowmu lqari waa sugnaanshaha ay xujaydu markay camalkaas sameeyaan aynan tegi karin ee ay mino ku sugnaanayaan inay baxaan aan la ogolay maalinkaas alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sida muuqata maalmahan fadliga waxaa loo siiyey waxa weeyaan makaanun liijtimaaci ummahaati licibaadati fiiha cibaadooyinkii waaweynaa maalin ay ku kulmi karaan maalmahan baa ka jira alsiyaam alsadaqa alxaj waxa weeyaan kulli waxay ku kulmayaan maalinka salaaddii baa ku jirta sadaqadii soomkii intaa haddaa adigu la timaadid adoo maalmahan aan joogin meel kale aa kula timaadid xajkii baa kaa maqan maalmahan marka waxaa ku kulma acmaashaas waaweyn oo xajku ka mid yahay mana suurtoobi karto maalmo kale inay ku dhex kulmaan ma suurtoobi karto maalmahan unbay ku kulmayaan alxaafid ibnu xajar alxaafid ibnu rajab alxambali asna wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa dadka mu'miniinta quluubtooda waxaa la dhigay hilow iyo jacayl ay u qabaan inay sanad walba soo arkaan beydkiisa oo ay soo daawadaan ayaa qalbigooda la dhigay qof kastana ma awoodo markaasaa ilaahay wuxuu kala qaada dadkii qofkii awooday hal mar baa lagu farad yeelay inuu tago meeshaas tobankan maalmoodna waxaa laga dhigay 10 maalmood oo la wadaagsado kuwii xagga tegey iyo kuwa aan tegin oo xajku u suurtogelin waxaa laga dhigay camal ay wada wadaagsanaadaan oo fadaa'ishii baa loogu wada sheegay markaasaa qof kasta meeshiisa ka didaalayaa oo fadiiladii iyo qiimihii uu helayo qofkii asagoo aan bixin gurigiisa jooga ee camal wanaagsan la yimaada wuxuu noqday qof ka fadli badan qofkii jihaadka aaday ka fadli badan buu noqday soo ma jeedo acmaasha wanaagsan oo ay habboonta in lagu didaalo maalmahan inta ka hartay oo yarta ah waxaa ka mid ah asiyaam
soonka ayaa ka mid ah haddii inta kale ay ku dhaafto maalinta carafa yaynan ku dhaafin soon weliba maalinka waxaa isku daydaa waxa adigu aad leedahay oo hantida ah inaad majmuucad dhan waddada afurisid isku day waa fursad dadku ayna wada fahansanayn waxaa laga yaabaa dadka halkan fadhiya badankoodu waxay u go'aan inay maalinkaas soomaan aysan dhaafin qof kasta go'aan bay u tahay maalinka inuusan dhaafin laakiin mid ku daro maalinka camalka la sameeyo waa camalka ilaahay agtiisa loogu jecel yahay sadaqada ka mida waxaad isku daydaa dariskaaga iyo majmuucada saaxiibada ah inaad tiraahday la soo afura cunno badan inaad samaysid masaakiinta aad siisid oo ay kuu kulmaan qofkii hal qof afuriya wuxuu leeyahay ajarkii soonkiisa oo kale uu leeyahay 100 qof baad afurisay 100kii qof oo aad afurisay soonkaagii ajarkiisii adoo leh 100 qof soonkood ajarkii ay lahaayeenna waa lagu qoray bal ka war maalinka marka xasanaadka aad iyo aad in loogu diidaa si gooni ah maalmahan dhexdooda waxaa la badiyaa dikrullah ilaahay xuskiisa haday tahay qur'aankii haday tahay salaadii haday tahay sadaqadii haday tahay tasbiixdii haday tahay taxmiiddii in maalmaha la badiyo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam nagu hanuuninaya sadaqada in la badiyo maalinka tobnaada ugu fadli badan waa maalinka la rabo aludxiya qofkii awoodaa inuu udxiyaysto ha ka tegin dhaqankaas naftaada bar ilmahaagu waa kaa dhaxlaya markay yaqaanaan aabba udxiyuu qalaa oo gurigeenna udxiyo ayaa lagu qalaa ay bartaan tarbiyo wanaagsan bay noqonaysaa waxay ilmahaagu hadhowta ku dadaalayaan alla aabba udxiyuu qadi jira waa inaan qalnaa markii waa weynaadaan sunno waxay noqonayaan ay aad iyo aad tarbiyo wanaagsan weyn soo kaxaysa neef 2 hadda awoodi ka dhig 3 hadda awoodid badso keen qayb gurigaaga iyo ahalkaaga qayb masaakiinta qayb hadiya sidaabahaas u kala qayb shardina ma ahan qaybtaa bixinaysa iyo qaybtaa la haraysa inaad isla ekaysaa shardi maaha inaad wax un ka bixisid waxna aad la hartid masaakiinta wax siisid ayaa muhiim ah intaasaa muhiim neefkana dadku waa yaqaanaan oo inuusan ceeb lahayn way og yihiin oo waa la barta midaas oo waxa weeyaan tafaasiisheeda badan dadka wax badan ayay ka yaqaanaan waxaa ku didaashaa maalmahan inaad dadka wanaag u sheegtid xumaantana ka reebtid oo waa fursade dadka aad taqaanidoo saaxiibada ah dadka balwadda leh dadka dhaqamada xunxun leh kuwa aan salaada tukan nasaa'ix wanaagsan gaarsiin oo maalmahan fadliga badan nala soo ciid aan isla afurna yawm carafa soon dharkaaga dhaqo salaada ilaahay tuko kaalado masaajidka imow waxa ka qayb qaadataa kelimad macruuf ah maalmahan inaad sabab ugu noqotid ilaahay inuu dadku ugu soo hanuuniyo waa camal aad iyo aad u weyn oo dadku ay